ahaa injineer koronto. Wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay in maanta aan muuqaalkan kuu soo gudbiyo adna aad taleefanka ka daawato. Laakiin wuxuu lahaa nolol mugdi iyo cabsi ay hareysay. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo taariikhda ninkan fariidka ah, laakiin dadkii dunida ku noolaa xilligaasi ay gacan qaban waayeen. balse hadda lagu baraarugay waxa uu ahaa. U diyaar garow fiidiyowga oo dhammaystiran. Fadlan subscribe dheh haddii aad nagu cusub tahay. Haddii aad horay noola joogtayna like inoo saar, sidoo kale asxaabtaada u share garay. Ku soo dhawaada fiidiyowga oo dhammaystiran. Nikola Tesla wuxuu ku dhashay July 10, 1856 magaalada Smiljan oo markaasi qayb ka ahayd boqortooyadii Austria-Hungary, haddana la yiraahdo Croatia. wuxuu ahaa wiilkii afraad ee qoyska Tesla. aabihiisa waxaa la dhihi jiray Milton Tesla. wuxuu ahaa wadaad orthodox ah oo qoraa caan ah. wuxuu qoray buugaag ku saabsan suugaanta iyo falsafadda. hooyadiis waxaa la dhihi jiray Georgina Duca Tesla. waxay ahayd qof aan waxbarasho rasmi ah helin, laakiin aad u caqli badan. waxay soo saartay gabayo iyo sheekooyin. waxay taageertay oo ay ku taageertay caqligeeda iyo maskaxdeeda Nikola. waxbarashadiisa iyo dhalashadiisa. Tesla wuxuu bilaabay waxbarashadiisii sare ee injineernimada iyo sayniska isagoo ka soo qalin jebiyey jaamacadda Technical University ee Graz, Austria. waxbarashadiisu waxay xoogga saartay korontada iyo magnetismka. Tesla wuxuu noqday mid caan ku ah hal-abuurnimada iyo xirfadaha sayniska ee uu leeyahay markii uu joogay Graz. wuxuu arkay mashiinka Greme Dynamo oo u shaqaynayay sidii generator koronto ah oo marka la rogo u noqonaya motor koronto. tani waxay keentay inuu fikrad ku yeesho sidii loo isticmaali lahaa nidaamka korontada talantaaliga ah ee loo yaqaano AC ama alternating current. Tesla wuxuu ahaa qof aad u hal-abuur ah. wuxuu muujiyey hibadiisa iyo kartidiisa qarsoon isagoo ka fiirsanaya mustaqbalka tiknoolajiyada. wuxuu leeyahay karti gaar ah oo ah inuu dareemo siraha sayniska iyo awoodda uu u leeyahay inuu arko mustaqbalka tiknoolajiyada. Tesla wuxuu shaqo ka helay Thomas Edison kadib markii uu yimid New York sanadkii 1884. Edison wuxuu ahaa mid taageera nidaamka korontada joogtada ah waa DC ama direct current, halka Tesla uu ahaa mid taageera nidaamka korontada talantaaliga ah ama korontada beddelka ah ee loo yaqaano AC ama alternating current. waxaa jiray khilaaf weyn oo u dhaxeeyay Tesla iyo Edison. Tesla wuxuu isku dayay inuu soo saaro xalal cusub oo lagu hagaajinayo nidaamka DC ee Edison, laakiin labadaba waxay ahaayeen kuwa aad u kala duwan oo ku saabsan hababka ay u shaqeeyaan. horumarinta nidaamka AC ama alternating current oo ah korontada talantaaliga ah ama korontada beddelka ah. Tesla wuxuu hormariyey nidaamka koronto ee AC, kaas oo ah nidaamka hadda ugu caansan ee korontada lagu gudbiyo. nidaamkan wuxuu suurtagal ka dhigay in koronto la gaarsiiyo masaafooyin dhaadheer oo aanay horey suuragal u ahayn. la saaxiibitaankii ninkii hantiilaha ahaa ee Westinghouse sanadkii 1888, George Westinghouse ayaa iibsaday xuquuqda beeshanka ee nidaamka AC ee Tesla, taas oo ahayd tallaabo weyn oo dhiirigelin u hayday guusha nidaamka AC ama alternating current ee ka hortaga ama ka soo horjeeda nidaamka DC ee uu lahaa aragtidaasi Edison. Coil. Tesla wuxuu sameeyey wax loo yaqaano Tesla Coil sanadii 1891, taas oo noqotay aalad muhiim ah oo loo isticmaalo tiknoolajiyada radioga iyo telefishinada. Tesla Coil wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro koronto xad dhaaf ah oo qiyaastii ku saabsan milyan volts. Tesla Coil si weyn looga isticmaalaa baaritaanka korontada iyo in la sameeyo tijaabooyin ku saabsan iftiinka iyo korontada talantaaliga ah. shaqooyinkii hore ee Tesla waxaa ka mid ahaa shaqooyinkiisa hore dhisidda mashiinada inductionka. intii uu ku sugnaa Budapest, Tesla wuxuu dhisay mashiinka inductionka, kaasoo noqday tallaabadii ugu horreysay ee guuleed ee nidaamka AC-ga.
horumarkiisii tiknoolajiyada. Walt Columbian Exposition waa bandhig faneed ka dhacay Columbia 1893 gaar ahaan magaalada Chicago. Wuxuu ku soo bandhigay guusha korontada AC. Westinghouse wuxuu isticmaalay nidaamka koronto beddelka ama korontada talantaaliga ee Tesla si uu u iftiimiyo Walt Columbian Exposition bandhigaasi oo ka dhacay Chicago 1893. guushan waxay muujisay awoodda iyo waxtarka nidaamka AC, taas oo u horseeday in la doorto nidaamkan inuu noqdo kan rasmiga ah ee korontada guud. guushan ayaa ka dhigtay nidaamka AC inuu noqdo mid caalami ah iyo in Westinghouse iyo Tesla ay helaan sumcad aad u weyn. sidoo kale guulaha u gaar wuxuu ka mid ahaa mashruuca loo yaqaano Niagara Falls, mashruuca biyadhaca Niagara. guusha expositionka ayaa keentay in Westinghouse iyo Tesla ay helaan heshiis lagu rakibayo mashiinada awoodda ee Niagara Falls ama biyadhaca Niagara. mashruuca wuxuu si awood leh koronto u gaarsiiyey meel la yiraahdo Buffalo sanadkii 1896 isagoo muujinaya awoodda nidaamka AC ee gudbinta korontada masaafo dheer. waxaa ka mid ahaa mashruucyadiisii Automatic Boat 1898. sanadkii 1898 Tesla wuxuu ku dhawaaqay inventionkiisa doonta ee loo yaqaano Automatic ah oo lagu hago xakamayn fog. doontan waxay u isticmaashay raadiyaha si loo xakameeyo, yacni waxaa loo isticmaalayay raadiyaha si doonta loo xakameeyo iyadoo aysan cidna raacin ayaa bannaanka laga maamulayay. Tesla wuxuu caddeeyey in doontu ay u shaqeyso sidii uu sheegay, isagoo sameeyey bandhig ka dhacay Madison Square Garden si uu u muujiyo awoodda inventionkiisa. horumaradiisii tiknoolajiyadeed waxaa ka mid ahaa Colorado Springs oo dhacay 1899 ilaa 1900. Tesla wuxuu sameeyey wax uu u arkay inay tahay ogaanshihiisa ugu muhiimsan ee ku saabsan dhulka iyo heerarka korontada. wuxuu muujiyey in dhulka loo isticmaali karo sidii conductor ama gudbiyo oo kale, iyo in lagu samayn karo resonance heer koronto oo gaar ah. mucjisadiisa sixirka u ekeed ayaa ka mid ahaa horumaradiisii tiknoolajiyada. Tesla wuxuu shiday 200 oo nal oo aan xarig lahayn ama aan fiilo lahayn masaafo dhan 40 kilomitir calaamadaha planetka. sidoo kale wuxuu isku dayay inuu helo calaamado ka yimid planet kale, laakiin sheegashadiisaas waxaa lagu qaabilay dhaleecayn dhanka sayniska ah. horumaradiisii tiknoolajiyada waxaa ka mid ahaa Wireless World Broadcasting Tower, towerka baahinaya korontada si fiilo la'aan ah oo wireless ah bilaa xarag ah. sanadkii 1900 Tesla wuxuu bilaabay dhisidda Tower Wireless World Broadcast. mashruucu wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu bixiyo isgaarsiin adduunka oo dhan iyo inuu siiyo adeegyo loogu talagalay sawirrada, fariimaha, digniinaha cimilada iyo warbixinada saamiyada oo dhammaantoodaba. mashruuca ayaa la joojiyey sababo la xiriira dhaqaale xumo, dhibaatooyin shaqo iyo bixitaanka taageerada maalqabeenka J. Pierpont Morgan. marka arrimahaas waxay sababeen in uu u suurageli waayo inuu sameeyo waxyaabaha wireless-ka ah. nolosha gaarka ah iyo dhimashada Nikola Tesla ayaa ku soo gabagabeyn doonaa. aan ku bilowno noloshiisa gaarka ah. Tesla wuxuu lahaa saaxiibo dhowr ah. saaxiibadiisu maysan badneen, laakiin saaxiibo uu lahaa. waxaa ka mid ahaa saaxiibadiisii qoraaga Robert Underwood Johnson la yiraahdo, sidoo kale qoraaga Mark Twain, qoraaga Francis Marion Crawford ayaa ka mid ahaa. saaxiibadiisa waxay noqdeen taageerayaal iyo qareenno ku saabsan hal-abuurnimada Tesla. Tesla wuxuu ahaa qof shakhsi ahaan aamusan, waxaana uu dhaliyey dareen xiise leh oo ku saabsan sheekooyinka uu qoray. saaxiibadiisu waxay ka warbixiyeen inuu ahaa qof aad u garaadsan, laakiin sidoo kale wuxuu lahaa caadooyin gaar ah iyo khalkhal nafsiyan ah. khalkhallada uu lahaa waxaa ka mid ahaa wax loo yaqaano germ phobia,
tesla wuxuu lahaa cabsi xad dhaaf ah oo ku saabsan bakteeriyada iyo cudurrada, taasoo keentay inuu qaato tillaabooyin adag si uu uga fogaado xaaladaha uu u arko inay halis u yihiin caafimaadkiisa. awooddiisa maarayn. tesla wuxuu ahaa mid aan ku fiicnayn arrimaha dhaqaale iyo maaraynta hantida, taasoo mararka qaarkood sababi jirtay inuu ku xadgudbo hababka uu wax u maamulo, taasoona keentayba inuu asigoo faqri ah oo aad u il daran uu dunida isaga tago. tesla wuxuu lahaa maskax heer sare ah oo awood u lahayd inuu fahmo siraha sayniska. wuxuu ahaa hal abuure iyo mufakir, wuxuuna lahaa awood uu ku arko mustaqbalka tiknoolajiyada. halkaas aan kaga gudubno iyo dhaqankiisa, aan u gudubno dhimashadiisa. tesla wuxuu geeriyooday January 7, 1943. wuxuu ku geeriyooday hotelka New York, halkaas oo ku noolaa waqti dambe ee noloshiisa. noloshiisa intiisa oo dhanba wuxuu ku qaatay hotelka New York la yiraahdo ee ku yaala New York. tesla wuxuu ahaa 86 jir markuu geeriyooday. wuxuu wajahayay xaalado caafimaad oo la xiriira da'da oo ay ku jiraan dhibaatooyin wadnaha iyo dhiigkarka. wuxuu ahaa qof ka tirsan bulshada oo go'doomay, isagoo oo aan lahayn taageerayaal iyo xiriiro xooggan intii uu noolaa. dadkii ayaa garbihiisa ka baxay oo meeshaa wuxuu ku dareemay cidlo. waa sababta loo leeyahay halyeegii garabka waayay ee dunidii xilligaasii nooleeday garab sii weysay. halkaasi waxaan kusoo gunaanudi doonaa barnaamijkeennii gaabnaa ee nolosha iyo taariikhda halyeegii la ilaaway Nikola Tesla.